kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda iyo xogaha qarsoon ayaan soo gudbinaa qodobadaan idiin hayna hadduu ilaahay raalli ka noqdana waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo diyaarad nooca milatariga ah ay ka qaaday baydhabo islamarkaana maanta duhurnimadii ka dejisay magaalada addis ababa kulamana la qaatay madaxda dalka etoobiya xukuumadda abiy axmed cali waxay toos hadda u qorsheynaysaa inay dhabar jebiso qorshaha dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid a warar soo baxay oo sheegaya in ciyaal weerada xubno ka tirsan ay dhaawac u geysteen guddoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan wararkaas ayaan eegi doonnaa iyana iyo xogo ka soo kordhay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo taageero u muujiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xilli ku-xigeenkiisa koowaad maxamuud sayid aadan iyo weliba ku-xigeenka labaad ay warar iskhilaafsan ka soo saareen arrinta xukuumadda cusub wasiirka magacaaban ee diinta iyo awqaafta ee soomaaliya mukhtaar roobow abuumansuurna waxa uu sii bilaabay wadatashyada ku aadan wax kabeddelka shaqada wasaaraddaas oo markii hore ahayd mid fadhiida maamulada dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka hiiraan mas-uuliyiintooda oo isku afgartay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab inay ka wada shaqeeyaan iyo kulamo ka soconaya magaalada muqdisho weli oo taageero loogu raadinayo xukuumadda cusub ee soomaaliya ee iyadoo magacaaban xilli dhanka kale shirar lagu mucaaradayo isla xukuumaddaas ay xamar ka soconayaan dibaddana waxaan idiin haynaa biriq ku dhacday meel ku dhow kursiga uu fadhiisto aqalka cad madaxweynaha maraykanka jo baiden intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn waa jimco taariikhda ay ku beegan tahay 5 bisha agoosto 2022 ku soo dhawaada qodobadaas aad ararta soo daawateen iyagoo faahfaahsan aan ku bilowno diyaaradda nooca milatariga ah islamarkaana ay leedahay dowladda etoobiya ayaa ka qaaday magaalada baydhaba maanta barqadii iyadoo duhurnimadiina ay ka degtay magaalada addis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya madaxweyne lafta gareen ayaa waxaa socdaalkiisa uu daaran yahay baa la yidhi arrimaha ku aadan xaaladaha soo kordhay duulaanka shabaab ay ka qaadeen gobolka bakool oo koonfur galbeed ay maamusho iyo weliba warar kale oo ku aadan arrimaha soomaaliya iyo siyaasaddeeda dhowaan taliyaha ugu sarreeyay sirdoonka etoobiya genaraal tezevaye ayelow ayuu kula kulmay baydhaba oo wafdigaas waxay ahaayeen mid dhambaal casuumaada uga siday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali xogaha waxay sheegayaan in etoobiya ay doonayso inay ciidamo dheeraad ah ayaa ku taageerto lafta gareen si uu uga hortago wax kasta oo maamulkiisa caqabad ku noqon kara marka la eego dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dhankeeda iyadana qorsheynaysa in meesha ay dhaafiso lafta gareen isbeddelkan degdeg ah ayaa la aaminsan yahay inay keentay magacaabidii mukhtaar roobow abuumansuur oo dowladda soomaaliya ay u magacowday wasiir ka tirsan xukuumadda xamse cabdi barre xilli ay addis ababa ay ugu jiray abuumansuur roobow dadka ay aadka u baadigoobaysa argagixisadana ka tirsanaa dalalka dariska la ah soomaaliya ayaana saameyn siyaasadeed ku leh arrimaha gudaha ee soomaalida kenya ayaa difaacday axmed maxamed islaam axmed madoobe 2018 iyada oo doorashadii axmed madoobe 2019 ayay jubbaland taageero ka heshay sidoo kale isla dowladda kenya ee uhuru kenyatta hogaaminayay iyadoo xilligaas ay garab iyo gaashaanba ay u muujiyeen haddana waxaa la aaminsan yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen in hadda uu dabada la geli doono dowladda etoobiya ay taageero siin karto waxaana golaha wasiirada soomaaliya ee dhowaan lagu soo daray roobow dowladda etoobiya ay u aragtaa mid saameyn kale abuuraysa oo la doonayo in cabdicasiis lafta gareen meesha lagu dhaafiyo waxaan ogaan doonaa kulamadaas madaxda dalka etoobiya iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waxyaabaha ka soo baxa iyadoo aad ay u kooban yihiin xogaha ku aadan waxyaabaha sida gaarka ah ay uga arrinsanayaan dhinacyadan isla wararkaas ayaan ku guda jirnaa iyo waxyaabaha la xiriira dowladda cusub iyo weliba xukuumadda waxaa shaqo bilaabay wasiirka magacaaban ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya mukhtaar roobow cali abuumansuur wararka ayaa sheegaya in wasiirka uu tegey xarunta wasaaradda islamarkaana weli inkastoo xukunka ama xilka uu la wareegin haddana waxa uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana uu qaabilayo isagoo ka dhagaysanaya aragtiyada iyo weliba talooyinka ama baahiyaha ay qabaan shacabka Soomaaliyeed iyo wasaaradda oo wax ka bedel lagu sameynayo sidii hore maadaama ay ahayd
fadhiid xilliyada xajka iyo weliba ciidaha ama ramadaanta marka la gaaro uun waxqabadkeeda ku koobnaayeen. wasiirka shaqada ka tegaya ee Cumar Cali Rooble ayaana waxa uu soo tusay xafiisyada ay ku shaqeeyaan islamarkaana wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa kamid ah meelaha dalka laga hago ay muhiim tahay, iyadoo Ruubu Abu Mansuur dadka qaar ay rumaysan yihiin inuu wax ka bedeli karo sidii ay wasaaradda markii hore ay ahayd iyo weliba isqabqabsiga ku dhisnaa arrimaha xajka iyo lacagaha badan oo dadka laga aruursan jiray. waa hagaag wararka kale ayaan u sii gudbaynaa warbaahinta xogta wararka, bal markan isqabqabsi ayaa waxa uu ka jira dhinaca Jubbaland marka la eego, iyada oo saacada ka hor madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu shaaciyay inuusan ku qanacsanayn qaabka xukuumadda cusub ee loo magacaabay. haddana war kale ayaa ka soo baxay mas'uul ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo weliba Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo weliba Cali Daahir Ciid ayaa labaduba waxay sheegeen inay ka tashanayaan sida laga yeelayo xukuumadda Xamse uu soo magacaabay dhowaan, islamarkaana ay ku sheegeen bahdil lagu sameeyey beesha sade oo ay ka soo jeedaan. haddaba waxay iclaamiyeen Cali Daahir Ciid iyo Maxamuud Sayid aayaha beesha shir looga tashanayo oo dhowaan ay qaban doonaan sida ay sheegeen, islamarkaana go'aan ay ka soo saari doonaan kadib shirkaasi. dhinaca kale maanta Jimcaha war saxaafadeed ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere ayaa dhankiisa waxa uu soo bandhigay inay ka Jubbaland ahaan taageersan yihiin xukuumadda talaadii isbuucan Xamse Barre uu soo magacaabay. taas ayaa u muuqatay in khilaafka Axmed Madoobe iyo Maxamuud Sayid Aadan mar kale uu dibadda u soo baxay, maadaama Luga Dheere uu amar ka helay baa la yiri qoraalkaas inuu soo saaro Axmed Madoobe, sida xogaha aan ku ogaanay taageeradana loogu muujiyey Xamse Cabdi Aar. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ka soo jeeda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Aar, iyada oo la og yahay xitaa in Xamse uu saaxiib dhow la yahay Axmed Maxamed Islaam. marka ma dhici karta baa la yiri in maamulkii uu garabka ka haystay in hadda qaarkood dhabarjibin ay ku sameeyaan, iyada oo ay u badan tahay in Maxamuud Sayid Aadan meesha laga saaro oo qof kale booskiisa Axmed Madoobe uu magacaabo, maadaama uu fallaaga ka noqonayo maamulka sida muuqata. wararka xukuumadda iyo arrimaheeda ayaan ku guda jirnay. kulamo gaargaar ah ayaa weli ka soconaya magaalada Muqdisho. wasiirada magacaaban ayaa weli taageero raadinaya oo xildhibaanada ku beesha ah ayaa ay la kulmayaan sida la sheegay, waxaana ay ugu horeyn sheegayaan in la taageero oo xukuumadda codka kalsoonida ay ka hesho baarlamaanka. Khadiija Diiriye iyo xubno kale oo wasiirada magacaabana ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay taageero heleen, islamarkaana Xasan Sheikh iyo Xamse Cabdi Barre ayaa ku amray wasiirada magacaaban in beelaha ay ku matalaan xildhibaanada baarlamaanka laga ogoleysiiyo xilalka loo magacaabay. waa hagaag gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal warbaahinta xogta wararka ee nagala socotaane, bal markana warar hoose ayaa sheegaya in gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan dhaawac loo geystay, iyadoo koox ka tirsan ciyaalka weerada ah ee degmada Kaaraan ka jira ay dhaawaceen sida la sheegay. ilaa hadda faahfaahinno badan lama hayo. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaaraan oo aan la xiriirnay waxay ka gaabsadeen ka hadalka arrintan, laakiin waxaa la sheegayaa in dhaawac mindiyeed uu ku dhacay gudoomiye Abshir Kaaraan. dadka qaar ayaa isweydiinaya sababta u sahashay in ciyaalka weerada ay u weeraraan gudoomiye Abshir Kaaraan. aaway ayaa la isweydiinaya istaafkiisa ama ciidamada ilaalada gaarka ah. marka xogahaas waxay yihiin kuwo isa soo taraya, laakiin dhaawac inuu yahay oo la dabiibayo oo daawo iyo xaalado kale ayaa uu wajahayaa baa la leeyahay. marka xaaladiisu waa ay wanaagsan tahay, inkastoo kiniiniyaal iyo weliba dawooyin uu qaadanayo oo dhaawacaas soo gaaray gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan ay sheegayaan. ciyaalka weerada ayaa aad uga xoogan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. dil iyo dhaawac iyo weliba dhac ay dadka u geystaan xilliyada habeenkiina isku socodka ayaaba aad u yar. hadda waxay bilaabeen in xaafadaha qaar ay lacaga ka qaadaan xilliyada aroosyada la qabanayo, islamarkaana dhibaato badan ayaa dadka ay kala kulmaan. xitaa hadday tacsi dhacdo waxa ay xaafadaha qaar amreen ciyaalka weerada hogaankooda in la soo wargeliyo oo neef loo geeyo iyaga, islamarkaana dadka imaanaya xaafadda tira ahaan la soo bandhigo. sida dowlad oo kale ayaaba ay noqdeenba sida ay sheegeen, laakiin waa jabhad sida dhibaatada dadka ay u geysanayaan marka la eego ay u badan tahay.
ugu dambeynna haddii aanu eegno wararka Soomaalida, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa la kulmay mas'uuliyiin ka socday dowlad deegaanka Soomaalida waxaana la isku afgartay in laga wada qayb qaato dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. mas'uuliyiinta maamulka dowladda deegaanka Soomaalida waxay sheegeen inaysan marnaba aqbali karin in laga soo gudbo gobolka Hiiraan oo shabaabku ay wada ka dhigtaan. dhawaan Al-Shabaab waxa ay ka gudbeen magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo dhinaca feerfeer aaday gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida, laakiin dagaal ayaa waxa uu dhex maray ciidanka liyu booliska iyo waliba ururka Al-Shabaab. deegaanka Laasqurun ayaana lagu dagaalamay, waxaana ay taas sabab ka dhigtay inay dib Al-Shabaab uga soo laabtaan halkaasi. maamulada dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ee bartamaha Soomaaliya ku yaala ayaa waxay isku raaceen in laga wada qayb qaato dagaalka ka dhanka ah shabaabka. waayadan ciidamo fara badan ayaa ay soo dhigeen ciidanka liyu booliska xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya, dhinaca gobolka Bakool, dhinaca gobolka Mudug, dhinaca gobolka Galgaduud iyo waliba dhinaca gobolka Hiiraan ee feerfeer xuduudda uu la wadaago iyo Qalaafe. halkaad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta xogta wararka. bal markan qodobka dibadda ayaan eegaynaa. meesha uu fariisto kursigana loo dhigo aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la soo warinaya in jac ay ku dhacday ama biriq, taas oo la warinayo in ilaa 6 qofood ay dhaawacyo soo gaareen. magacyada 6 qofood ee dhaawacyada ah weli lama soo tabin, laakiin aqalka cad ee Mareykanka afayeen oo hadlay wuxuu sheegay in burbur ay biriqda u geysatay. sidoo kale goobta uu fariisto madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kooxaha gurmadka ayaa la arkayay sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday iyaga oo halkaasi tagay. dadka dhaawacyada ayaana meesha laga qaaday. xilliyada roobka ayaa markii uu da'o waxaa la arkaa biriq ama jac ku dhacaysa meelo kala duwan, mararka qaarna dad ayaaba ay dishaa. burbur xoog lena goobo ay ku dhacdo ayaa laga arkaa. guud ahaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka Soomaalida iyo caalamka. xogta wararka iyo nagala socoteen daawadayaal. inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono, nabadgelyo.